kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda codka muhaajiriinta Malta ee Voice of Migrant Radio VOM oo uu idin soo gudbinayo ururka warbaahinta Afrikaanka Malta. waxyaabaha aad maanta ku maqli doontaan idaacadeena waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan xuquuqul insaanka, xubintii lafagurka nolosha oo aan ku soo qaadan doono xaaladaha nololeed ee ay la kulmaan muhaajiriinta inta ay ku soo gudi jiraan safarkooda tahriibta, warbixin ka hadlaysa taariikhda Malta iyo kaalmihii suugaanta. idaacadda maanta waxaa soo saare ka ah Xuseen Cabdullaahi, waxaana idinla socodsiin doona anigoo ah Axmed Nuur Ibraahim Soomaali. aanu ku bilowno marka hore warbixinada. dowladda Malta ayaa dadaal xoogan ugu jirta hindisaha ku aadan horumarinta xuquuqul insaanka iyo muhaajiriinta aan la socon ee ay ka midka yihiin caruurta ay soo gaara Malta. dhawaan ay ahayd markii hay'adaha IOM iyo UNHCR ay si wada jir ah ay u soo saareen warbixin ku saabsan xaqa ay leeyihiin muhaajiriinta aan la socon ee ay ka midka yihiin caruurta qaxootiga ee soo gaaraya Malta. dowladda Malta ayaa dhankeeda soo dhaweysay warbixinta hay'adahaasi iyo sidoo kale tilaabooyinka ay soo jeediyeen ururada caalamiga ah dhammaantood. wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee Jamhuuriyadda Malta Dr. Manuel Melia oo ka hadlay madashaasi ayaa wax ka taabtay arrimaha socdaalka, waxaana uu yiri muhaajiriinta aan la socon waxa la siin doonaa taageerada ay u baahan yihiin, laakiin waxaanu adkayn doonaa arrimaha ammaanka iyo caafimaadka dadweynaha, taas oo aan u aragno muhiim. waxaan u baahannahay in aan isku dhex wadno tan muhaajiriinta iyo danta guud ee qaranka, ayuu yiri Dr. Melia. wasiirka ayaa sidoo kale tilaabo wanaagsan ku tilmaamay warbixinta ay soo saareen hay'adaha socdaalka caalamka IOM iyo hay'adda qaxootiga caalamka UNHCR ee ku saabsanayd xal u helidda muhaajiriinta aan la socon ama aan la wehelin oo ay caruurtu ka mid yihiin. warbixinta hay'adaha IOM iyo UNHCR ayaa lagu sheegay in dowladda Malta ay samayso ciidan si joogto ah uga shaqeeya arrimaha muhaajiriinta iyo in iskaashi wada shaqeyneed uu dhex maro wasiirada ku lugta leh hawsha socota iyo ururada caalamiga ah sida IOM iyo UNHCR iyo hay'adaha kale ee samafalka ah ee iyaguna howlaha bini'aadanimada wax ka wada. xukuumadda Malta ayaa sidoo kale laga dhowraya hirgelinta xarun cusub oo loogu talagalay qaabilaadda caruurta, halkaas oo lagu siin doono taageero nafsaani ah iyo mid bulshaba. xaruntaasi waxay fududayn doontaa qiimaynta da'da, la talinta iyo warbixinada ku saabsan midaynta qoyska. warbixinta waxaa kaloo lagu sheegay in madaxweynaha Malta Miss Maria Louise ay cusboonaysiin doonto iskaashiga ururada caalamiga, taas oo cadaadis lagu saari doono si adeegyada bulshada loo helo, maskaxda muhaajiriintana loo tuso nolol wanaagsan. madaxweynaha Malta Mary Louise oo ka hadashay arrimaha caruurta muhaajiriinta inta uu socday bandhiga warbixinta ay soo saareen hay'adaha IOM iyo UNHCR ayaa waxay tiri kuwani waa caruurteena oo kale, waxaa laga yaabaa in ay kobciyaan awoodda wadamada martigeliyay iyagu iyo in ay noqdaan daneeyayaasha nabadda dalalka ay asal ahaan ka soo jeedaan, ayay tiri, iyadoona ku boorisay muhaajiriinta ka qaybgalka arrimaha bulshada. xogayaha dhanka caafimaadka baarlamanka ee dalkani Malta Chris Fermi oo isna madashaasi ka hadlay ayaa ka dhawaajiyey ereyo u dhigma kuwa madaxweynaha, isagoo intaa ku daray in caruurta soo galootiga ah loo daweeyo sida kuwa dalka u dhashay oo kale. caruurta uma nuglo da'dooda oo keliya, laakiin sidoo kale waxay u nugul yihiin dhanka luuqadaha iyo dhaqanka, ayuu yiri. dhanka kale agaasimaha guud ee hay'adda IOM William Lacy Swing ayaa isna ballan qaaday taageerada ururada, waxaana uu yiri waxaan diyaar u nahay in aanu ka gurno hadal oo aanu tilaabo qaadno sida ugu dhaqsiyaha badan. haddii aanu ku guulaysano dejinta muhaajiriinta, waxaana tixgelin doona wadamada iyo muhaajiriinta dhammaantood. waxaa sidoo kale la heli doonaa arrimaha habowga ah ee ku saabsan diidmada muhaajiriinta, ayuu yiri. si kastaba ha ahaatee, muhaajirnimadu waxay ahayd mid taariikh wanaagsan ku leh caalamka, laakiin hadda waxaa jira dhaqdhaqaaqa aan aadmigu aragga. ugu yaraan mid ka mid ah 7 qofba waxaa barakacay hal qof, sida ay sheegayso hay'adda qaxootiga caalamka qaramada midoobay ee UNHCR. safaaradda Mareykanka ayaa martigelisay shir taxane ah oo lagu daawanayo 4 fiideo oo digital ah si loo siiyo xirfadlayaasha takhasus tababar caafimaad oo ku saabsan howlaha cisbitaalka si ay u noqdaan ka jawaabiyaasha ugu horeeya ee faraxumeynta galmada.
dr robert lebry oo ah maamulaha NGO-ga Victim Support Malta ahna hogaamiyaha kooxdaasi ka jawaabista xaaladda faraxumeynta galmada ee Sirta ayaa isku soo dowriday tababarkani waxaana ay u mahadcelisay taageerada safaaradda Mareykanka. Sirta waxa uu bixiyaa adeeg dhammaystiran ee dhibanayaasha faraxumeynta galmada la kulma, adeeg caafimaad oo gaar ah, isku dubridka faragelinta booliiska, shaqada bulshada, dabagalka caawinaad sharci ah iyo mid nafsaani ah ee dhibanayaashu ay helaan. Dr. Bridget Alexander oo ah agaasimaha caafimaadka ee Sirta Bronx ee magaalada New York City ayaa bixinayay tababarka dhaqaatiirta. Sidoo kale Miss Elise Turner oo ah kaaliye sare ee dhanka umulisada iyo galmada ayaa bixisay casharo ku saabsan umulisooyinka. Labada tababare waxa ay ka hadleen saameynta galmada dhibanayaasha iyo guud ahaanba bulshada. Kaalinta kooxda Sirta ayaa ah farsamooyinka isgaarsiinta, ururinta cadaymaha, baaritaanka dukumentiyada iyo cadaynta marqaatiyada ee maxkamadaha. Safiirka safaaradda Mareykanka Ambassador Genia Abercrombie Winstanley ayaa soo dhaweysay ka soo qaybgalayaasha iyadoona ku dhiirigelisay isdhaafsiga khibradda. Waxay ku celcelisay taageerada safaaradda Mareykanka ee ku aadan awoodgelinta dumarka iyo gabdhahaba. Dhanka kale, isla safaaradda Mareykanka Malta ayaa guul ku tilmaantay ku dhawaaqista in ururka xuquuqul insaanka ee Koobin uu helo deeq lacageed oo dhan 24,996 oo lacagta dollarka Mareykanka ah, taasoo abaalmarin ahaan loogu talagalay sanduuqa qaxootiga ee Julia Taft ee ka timid dowladda Mareykanka. Dhaqaalahani ayaa lagu maalgelinayaa mashruuca caafimaadka galmada ee taranka, kaas oo la gaarsiin doono dumarka qaxootiga iyo qoysaskooda ee Malta, taasoo loogu talagalay ururka xuquuqul insaanka ee Koobin oo ay iskaashanayaan NGO-ga Integra Foundation. Mashruuca waxa uu wax ka qabanayaa deegaanka daryeelka dumarka qaxootiga iyo tababaro in la siiyo waaxda caafimaadka Malta, gaar ahaan shaqaalaha ka shaqeeya qaybta umulisanimada iyo umusha. Maalintii Arbacada 12 November, ururada Koobin iyo Integra waxa ay bilaabeen tilaabadii ugu horeysay oo xiriir ah, kaas oo tababaro ay ku siinayaan umulisooyinka maxalliga ah. Abaabulka tababarka ayaa ahaa mid ay la kaashanayeen xafiiska muhaajiriinta ee caafimaadka iyo mideynta xirfadaha waalidka ee cisbitaalka Mater Dei. Inta lagu guda jiray tababarkani lagu qabtay safaaradda Mareykanka ayaa umulisooyinku waxaa lagu tababarayay in ay fahmaan baahida iyo danaha dumarka qaxootiga ee ku saabsan galmada iyo taranka. Tababarayaashu waxa ay la wadaageen umulisooyinka habka ugu habboon ee ay ku fududeyn karaan xilgudashada isgaarsiinta iyo xoojinta xiriirka u dhexeeya haweenka qaxootiga iyo xirfadleyda caafimaadka Malta. Isuduwaha mashruuca Elizabeth Trednick ayaa tiri mashruucu waxa uu ka dhigan yahay tilaabo muhiim ah oo horey loo qaaday. In aanu gaadhno caafimaad tayo leh waa guul, gaar ahaan caafimaadka galmada iyo taranka haweenka qaxootiga ah ee ku nool jasiiradani Malta. Ambassador Genia Abercrombie Winstanley ayaa iyana ku soo dhaweysay ka qaybgalayaasha safaaradda Mareykanka, waxayna ku celcelisay in ay ka go'an tahay sidii loo furdaamin lahaa horumarinta xuquuqda aadanaha oo ay ku jirto xuquuqda haweenka iyo in la taageero dadaalada dowladda Malta si kor loogu qaado isdhexgalka dadka qaxootiga iyo deegaanka. Midowga Yurub ayaa si rasmi ah u bilaabay howlgalka badbaadinta muhaajiriinta ee ay ku badbaadinayaan muhaajiriinta isku soo biimeynaya halista badda Mediterranean-ka kadib markii ay soo gabagabaysay dowladda Talyaaniga bilowga bishan howlgalkii ay ugu magac dartay Mare Nostrum oo micnihiisu ahaa baddeena. Howlgalkaasi ayaa bilowday Oktoobar 2013 ee sanadkii hore, waxaana lagu badbaadiyey in ka badan 150,000 oo qof oo muhaajiriin ah, waxaana ku baxay adduun lacageed oo dhan 114 milyan oo lacagta yuurada ah, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Talyaaniga Angelino Alfano. Midowga Yurub ayaa sheegay in uu sii socon doono howlgalka badbaadinta muhaajiriinta ee badda u dhaxaysa Afrika iyo Yurub, iyadoona ay ka qaybgalayaan 21 markab, diyaaradaha sahanka iyo 65 sargaal. Warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ayaa iyana lagu sheegay in sanadkan 2014 oo kaliya ay ku dhinteen badda Mediterranean-ka muhaajiriin dhan 3,300 kuwaas oo isku dayayay inay ka soo tilaabaan badda u dhaxaysa Afrika iyo Yurub.
waa hagaag markana aanu u gudagalno qaybaha kale ee idaacadeena Voice of Migrant Malta VOM Radio codka muhaajiriinta Afrikaanka ee Malta. xubinteena lafagurka nolosha sidaan hore idinku soo sheegnay maanta waxaanu ku soo qaadan doonaa arrimaha ku saabsan marxaladda adag ee ay la kulmaan muhaajiriinta inta ay ku soo gudu jiraan safarkooda tahriibta. haddaba waxaa noogu marti ah Cabdishakuur Xasan Jaamac oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee dhibaatooyinka adag la soo kulmay ee ku nool jasiiradda Malta. Cabdishakuur ayaan ugu horeen waxaan weydiiyey bal in uu faahfaahin naga siiyo marxaladda adag ee uu kala soo kulmay dalka Liibiya. magacaygu waa Cabdishakuur, waxaan dhawaan soo gaaray dalka Malta. Liibiya waxaan soo galay 2008 ilaa iyo al'aankaas waxaan ahaa tahriib. dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan baa iga soo qabsatay. Axmedow, Liibiya aad iyo aad baa loogu silciyaa Soomaalida. dhibaatooyin badan baa loogu geystaa Soomaalida. anigu waxaan soo maray jeelal fara badan oo Liibiya kamid ah. jeelka ugu weynaa aan soo maray Liibiya wuxuu ahaa jeel la dhaho Daweyshiyo. waxaan ku jiray sanad iyo bar. jeelkaas waxaan loo ku geystay dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan. sanad iyo barkaas waxaa ku jirnay Soomaali gaaraysa 600 oo qof oo gabdho u badan yihiin. gabdhaha aad iyo aad baa loogu dhibaateeyay. wax daryeel kuma haysan meeshaas. qayb baa gabdhaha nooga dhashay, qayb baa lagu jirdilay. habeen iyo maalin waxaan lagu shubi jiray biyo oo lagu rusheey jiray oo la dhigi jiray murtasaqiin baa tiin wadanka ka dagaalantay. annagoona wax dhibaato aan wadanka aan ku geysan oo aan ahayn tahriib. saasoo ay tahay wax tixgelina kuma haysan kuweena joogay 5 sano iyo kuweena joogay shalay soo galay isku mid baan ku ahayn. waa tahay goorma adigu Soomaaliya ka soo tagtay? Soomaaliya waxaan ka soo tagay 2008 baan ka soo tagay bishii 3aad baan ka soo tagay. intaas waxaan ahaa tahriib. lacag baan haysan. dhibaatooyin badan baa soo maray wadada aan ku soo maray. lacagta ay ugu yarayd marba meel baa lacag la igu soo dirayay. reerahayaga lacagta waa ka dhameeyay. saasoo ay tahay Liibiya inta waxa igu hayay tahriib. doon baan u fadhiyay aan raaco. doontii aan raaco ay la soo laabataa. bad jeel baan galaa, waa ka fakadaa. mid kale aan galaa, waan ka soo dhacaa. mid kale aan galaa, waa la igu jirdilaa. midkii ugu badnaa waxa ku jira sanad iyo bar waa ka hadda ka hadlayo Soomaalida gabdhaha aad iyo aad loogu dhibaateeyay. gabdho waxa jira ku dhalay caruur. waxa inoo imaanaya safaaradda noo imaanaysa waxa inoo qabanaysa habeeraata mid safaaraddu waa imaanaysa marka imaato waxa la leeyahay barar safiirkii baa furtada la laga gelinaya. wax uu noo qabanaya ma lahan. waxa wada kuma lihiib ku leeyahay meeshan nimanka meeshan haysta waa tawaar iska noqda. anigu iska noqonaya ilaahay meeshan ka soo furdaamiyo. sanad iyo bar baan halka dhex fadhinay jeelkaas oo albaabkana lagu xiray ijrina la dhahay. marka adigu sad uga soo baxday jeelkaasi aad ka sheekeynayso iminka Cabdishakuur? jeelkaas waa soo jabsanay. daaqad baan soo jabsanay 3 mitir kor naga ah. korkeena markii la koro darbiga 3 mitir korkeed baa daaqad ka jabinay. habeen bar 9 saac oo habeenimo ka soo dhacnay askartii oo jiifta ayadii una ceyrsanaysa. waxaan ordaynay muddo 6 saacadood ah baa ordaynay oo aan u soo ordaynay magaalada meel baadiya ah jeelku ku yaala wadanka u dhaweyn. ayadana ceyrsanaysa askartana ceyrsanaysa. waliba rag baa xabadna loo ka dhuftay. wiilba xabadna loo ka dhuftay. caloosha ay xabad uga dhacday oo kaliya ka soo dhacday oo asagoo kalidu ka daloosho buu doon raacay oo Itaaliya u galay. anaguna Malta ka soo xiranay. waa tahay intee qofaad marka ku soo baxsateen? jeelkaas waxa uga soo baxsanay 26 dhalinyaro ah baa uga soo fakanay. maalintii ka horeysay waxa noo bilaabay dhicitaanka gabdho. gabadh baa dhacday, labada lugood bay ka jabtay. gabar kalena way fakatay. laba gabdhood baa noo bilaabay. labada gabdhood markii gabar dhacday labada lugood bay ka jabtay. hadda Malta joogta iyadoo curyaan ah way naga soo horeysay. waa tahay dadkii kalena mee? dadkii kalena al'aanka qayb baa ku jirta. al'aanka qayb baa ku jirta. qayb waxa ku jira 2 sano iyo bar ku jirta baa jirta jeel weyn oo la dhaho Daweyshiyo. 2 sano iyo bar ku jira. garyaan sidoo kale waxa ku jira Soomaali aad iyo aad u far badan oo waliba gabdho u badan. doomihii hadda degi jiray oo badan ku shiidi jiray dadkii ka haray ka badbaaday ee doomo kale oo la celiyay. kulli garyaan ma ku wada xiran yihiin. wax daryeel iyo wax baalkiina kuma haystaan soo dhaweysha iyo wax muslimnimo ah. dadkaas waxay noo geysteen dhibaatooyin aad iyo aad u far badan oo aan laga soo kaba karin Liibiya. ma hilmaami karno intay dhibaatada noo geysatay. waana Soomaali dhibaato ku maqan. waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed walaalayaal oo meesha soo aadinina. Cabdishakuur sababta dadka loo xirxiraayo maxay tahay? ma dalkii aad dib loogu celinayaa mise xabsiyadii un baa la isaga hayaa? dadka xabsiyada la iskaga haya wax la celinaya ma laha. nin maanta inta loo yimaado la dhahayo isceli haba yaraatay ma jirto. dhalinyaro waxaan ogahay goosatay go home oo lacagta la baxday xataa 2600 la baxday oo aan al'aanka la celin. lacagtina laga qaatay oo lagu yiri barnaamij dalkiina liina celin maayo. waxaa soo haray xasaasiyad baa dhalinyarada ku dhacaysa jeelka. wax daryeel kuma haystaan. hay'adii timaada waxa la leeyahay hadaa afkiina furtaan idaacadii timaado afkiina hadaa furtaan
waxaan ku dhacay ninkaas ku dhigay suun baa la dhacay dadka maxaa ku waranteen baa la leeyahay hay'adii baa hadana dib loo wareysanaya waxa idaacadu ay wadatay oo mikrofoon iyo waxa oo dhan baa dib loo duubaya kaamirooyinka oo dhan baa laga jibinaya waa tahay saxarihi ayaa soo martay safar dheer muddo Liibiya ayaa joogtay tan iyo 2008 ayuu safarkaaga qaatay hadda ay ku surooday Maalta inaad soo gaarto hawl fara badan iyo dhibaato aad u adag baad ka soo martay Abshakuur xaguu ka soo bilaaway safarkaaga qaab nooceed Liibiya ku timid oo aad Maalta ugu dambeyn ku soo gaartay Axmedo waxaan ka soo baxay Soomaaliya 2008 bishii saddexaad waxaan imid Ethiopia haddii aan Ethiopia imid Muqalas baa wuxuu iga qaatay lacag gaaraysa $500 wuxuu keenay Suudaan baa la igu xiray Suudaan markii la igu xiray oo aan soo galnay baan la qabtay askar baan qabatay inta gurina la ku xiray kuwa Suudaan markii la qabtay jeel baan la geeyay Abu Durmaan la dhaho Suudaan ku yaala waxaan ku xirnay jeelkaas 12 bari safaaradda Suudaan baa noogu timid oo Soomaalida u fadhida way naga soo saareen jeelkii hadii jeelkii naga soo saareen waana la soo diray nimanka tahriibayaasha baa soo diray iyaguna waxa naga qaateen $500 bay naga qaateen cala qof sidii baa saxaraha ku soo galnay saxaraha markii aan soo galnay waxaan soo nimid meel la dhaho Itijaabiya baa nimid waxaana la ka qaatay lacag gaaraysa 1200 cala nafar goortii 1200 na la ka qaatay kadib waxaana loo gudbiyay nin kale oo wuxuu yiri 1200 oo kale aan ka rabaa ninkii kale aniga iyo 6 kale waa ka soo cararnay waa ka soo dhacnay gurigiisi laamigaan soo qabsanay taxi baanu helnay tuulo kala nimid adu 15 bari baa ilaa iyo Trablus ilaa iyo Itijaabiya u soo socday anu alxamdulillah ilaahi waa keenay Trablus lacag damana la igama qaadin aan 1200 ahayn inta kale waa inta isku soo dabaray oo Trablus aan ku imid waa tahay saxaraha ayaa soo martay saxarahan waxa yaala dhibaato aad u fara badan oo dad badan ay ku dhamaadeen dad badan lagu jirdilo dumar fara badan lagu kubsado bal arinta saxaraha Abshakuur waxyaabihii indhahaaga aad ku soo aragtay bal markaad noo yara taabato haddii niyo arinta saxaraha aan xasuusta aad baan u qiiroonayaa saxaraha nagu soo martay dhibaato aad iyo aad u fara badan baa saxaraha nagu soo martay gabdhaha aad iyo aad baa loogu farxumeynayay waliba gaajaan qabatay aad iyo aad cunadii baa naga dhamaatay gabadha markuu ninka Suudaaniga ay u tagtay gaariga wata ay tiraado walaalo macaan cunay si ya laba dharbaax u gelinayay laad iyo qori baagis baa lagu dhufanayay Soomaaliduna ma hadli karto waana la kufsanayay waxa la aadayay gabdhaha lix baan loo ka kaxaysanayay waxa la aadayay buur gadaale buuro waaweyn baa ku yaala saxaraha buuraha sare la aadayay ciid tuuran oo buur camal ah gadaalkooda la aadayay gabdhaha waxna ma sameeyo kan waa ka dabayaacna marka aan ka dabayaacna rasaas baan lagu soo furaa waa naxna waxana la tusaa dhalinyaro meedkoodii oo wada saxaraha yaala waxaan anaga laynaba leeyahay hadda isnu xisaan waa in ka tagaya saxaraha in ka tagaya wixii la doono gabdhiina lagu sameeyo ma hadli karaysan dhalinyaradii nimankii odayaasha oo nagu jiray waxay dhaheen hay wariyaha gacan ma qaadi kartaan wixii la doono gabdhaha lagu sameeyo faraha laga qaaday nimankan marka tacadiga intaas la eg xaguu ka dhacaa ma dhanka Liibiya ma dhanka Suudaan ba ma Chad ba ma xagga Masar ba waxaan ognahay afarta dal inta u dhaxaysa inay tahay meesha dhibta ugu xoogan ay ka jirto ay xagga saxaraha gudihiisa way Suudaanta markay ku soo qaado saxaraha waxay doonaan bay kaaga sameeysanayaan Liibiyaanka markay kugu soo wareejiyaan Liibiyaanka gabdhaha iyo inuu ku arki meesaan gabdhihii wixii la doonaa lagu sameeynaya oo afar baba loo qaadanaya gawaari baa lagu ridanaya afar gabadhan anaga labadan gabdhood anaga qaadanayna labadan wiil anaga qaadanayna qof walba lacagta gooni baa looga qaadaya dhalinyarada marka waxa la isku keenaya wiilasha meel gaar ah la isku keenaya hadhow gabdhihiina laba arki maayo illa ma Trablus soo gashid gabdhihii il saari meesid ninkii nasiib leh waa ninka gabadhiisa ku dhaga oo dhaha xaaskaygu weeyo qoftan iska booya in loo daayo waa dhici karaysa ninkaas laakiin gabdhaha kale arintood aad iyo aad bay ku sugan tahay xaaladooda aad iyo aad bay u xun tahay dhibaatooyin fara badan baa loogu geystaa dumarka waliba ciyaalka saxaraha waa ku dhintaan saxaraha ciyaalka waa ku dhintaan dumarku gabdho badan oo suuxdimo qabaan naga socdaanay 3 gabdhood oo suuxdimo qaba 2 gabdhood waa dhimatay hal gabarna waa ka badbaaday oo yaa Allah bay ku soo gashay Trablus ee ku timid inta wiil oo saxaraha gaariga ka dhacay oo laga tagay xisaamadaha 4 wiil waa laga tagay 4 gaari baan ahayn 4 wiil intay dhaceen baa laga tagay saxariya ay u dhex taagan ugu dambeysay meel Allah meel ay ka dhaceen caawiyaal garamayno waa tahay Liibiya marka ay soo gaaraan gaar ahaan Tripoli dadkan tahriibiyaasha ee Soomaalida iyo Afrikaanka kale ba isugu jira maxaa loo xirxiraa sababtu maxay tahay Abshakuur markaad eegto sababta loo xirxiro waxay tahay Liibiya marka anagu aanu soo galno wax sharciyo kuma soo galno wax sharciyana kuma nimaano hadii ay saas tahay daryeel kuma haysano oo qof walba wuxuu damcaaya meesha soo uga bixi lahaa
dawladna meesha kama shaqeynayso hadeer waaga soo galay dawladdu waa ka shaqeynaysaa soo ay tahay Qadaafi dadku wuxuu xiri jiray qofkii la xiro waxa lagu soo deey jiray 1200 baa lagu soo deey jiray jeelka lagu soo deey jiray markii lagu soo daayay maanta isla bari hadana ku kala qabsanayaan ku xirayaan 1200 oo kala laga rabaa silci asaas aha Qadaafi dawladdiisu waa dhacday hadeer waxa bilaabatay qofkii soo galay in la xiro aan la soo deeyay lacag kasta u bixiyo aan la soo deyn jeelka laga soo deyn illa ma uu ka soo dhaco hadii uu ka soo dhaco kuwa kala qabanayo waa la xirayaa badii haduu galo waa la qabanaya waa la xirayaa waa tahay adigoo xilli fog ayaad Liibiya soo gashay 2008 waa xilli fog dhowr sano ayaa ka soo wareegatay Qadaafina waxa lagu eedeynayay dadkan Afrikaanka waliba eeda loo jeedinayo oo ay u jeedinayaan dadka Liibiyaanka waxa ay tahay in Qadaafi ay ka barbar dagaalamayeen sida daraadeedna nacay fara badan ay dadka reer Liibiya ay u qabaan dadka madow ay sama arki karin arimaha iyada maxaad nooga sheegi kartaa muddadaasi kulay Liibiya waad joogtay axmedow anigu waan joogay Liibiya markuu Qadaafi dhacay iyo markii la soo weeraray Liibiya la duqeynay inta waa dhex taagnaa saasoo ay tahay Soomaalidu wax dagaal ay Liibiya ay ku lahayd haba yaraatay Liibiyaankuna waa ogyihiin meeshan qofkii ka dagaalamo waa loo jeeday waxa ka dagaalamay dawladaha ka dagaalamay Chad Niger dawladahaasi ahaayeen Soomaalida wax lagu ay ku lahayd haba yaraatay ma jirto dadka soo jeeda bay ahaayeen Niger iyo Chad iyo Suudaan dadka soo jeeda bay ahaayeen Soomaalida wax lagu ay ku lahayd haba yaraatay ma jirto saasoo ay tahay Liibiyaanku madow oo dhan waa nacaan madow oo dhan lama tusi karaayaba cunug yar baa ku qabanaayo uu ku baaranaya midib uu kula dhacaya fudud muddo kala dhacaya waxa dhigi kartaa yaraatay malaha midka dhagax ku dhufanayo wadada Amaris wadada loo marko dukaan lama aadi karo oo dukaanka hadda macna inaad doonatid waxa noqonaysaa gabdhihiina cunno u dirsato tala walaal macaan dukaanka iga soo gad adaa lagu ixtiraamaya gabadhe oo laga xishoonaya adiga hadda dukaankii cunno inaad u doonatid macna dhagaxa ku dhacayo tuurida ku dhacaysa cunuga midida ku shilin lama aadi karto dukaanka war dhibaatooyin aad iyo aad u far badan baan ugu qabsaday meeshaas al'aan kana Soomaalida ku haysta سفارتين wax awood uma lahan inay arimaha iyada ay ka qabato safaradu wax awood uma lahan safarada kaarigeeda la dakhrayaa dhagax lagu dakhrayaa wax awood uma lahan gaari madow hadii la arko laga dakhrayaa waxba ma sameey kartid tawaarba meesha qabsatay baa lagu leeyahay ana santaan muninku ku leeyahay waxa la garanay ma ku hadlaaya Soomaalida ma aftaqaano dhibaatooyin aad iyo afka si kasto af Carabiga u taqaan anu af Carabiga si fiican ba u bartay saasoo ay tahay kama badbaadi jiray anu dhahay Liibi ba ahay ana Liibi anu dhahaya wax madax ka qaraacayaan waa tahay marka Liibiya timaadeen oo muddo kadib aad joogtay aad martay xabsiyada aad soo gashay kadib bixitaankaagii sidee buu kugu suuroobay wuxuu igu suuroobay jeelkii marka aan ka soo dhacay meesha anu laga baxay fiican ba u garanayay دوما بدن oo ka fiirsaday baa jiray doontaan aan soo raacay doona ka fiirsaday bay noqotay alxamdulillah rabbil alamin badii marka aan soo galnay dhibaato aad iyo aad u far badan baa badan aan ugu qabsatay badii marka aan soo galnay way nagu kacday badii aad iyo aad baan ugu kacday waxaan ahayn 120 qof baan ku soo cabeeyay doonta oo lagu hasaas aan isku kaay saaray gabdho iyo wiilal intaba looma asxaan falin 120 waan ka badnayn dad baan naga yaacay oo xeebta nooga yaacay oo yirdoonta raacay marka anagana la buuxiyay 120 ka badan buu rabay carabku inuu nasaaro markii aan soo galnay badii 10 qof badii markay kacdo 10 qof dhinac bay ka daadatay oo badii ku dhacday looma joojin waa soo soconay 10 qof oo meeshii qeylqeylinayo badda uu kala degtay waa ka soo soconay Soomaaligu istaag waa ka weyn wuxuu istaag maay hadii ay dadka qabsadaan doonta way degaysaa baasho meelaha ugu dhimashaha badan dadka Afrikaanka waliba Soomaalida waxaan ognahay inay tahay marka badda la soo galaayo oo ay jiraan niman muqallasiin ah oo ku shaqeysta barnaamijkan dhoofinta dadka ay doonyaha ku soo rastaynayaan sidii badeeca la dhoofinayo dad badan oo Soomaali ayaa badda ku dhamaaday adiguna 2008 ayaa Liibiya soo gashay waadna u joogtay sidee dadku badda ay ugu soo safri jireen sidee dadku ay u arkayeen safarkan qatarta ah shilalku sidee bay u dhici jireen axmedow anigu markii aan soo tagay waxaan islahaa Yurub galbal islahaa markii aan soo tagay laakiin markii aan Liibiya soo galay ilaaho dhan unya kaaga saaraba iga qabsatay alxamdulillah rabbil alamin waxa ii fududaatay dhinacan in aan soo baxo dhinac xaqna waa u laaban waayay xaqna waa u socon waayay xaqna waa u socon afartii koona waa ka xirmeen xaq uma socon kartid xaqna uma bixi kartid marka waxay noqotay in dhinac badda aa gashid dhinac badda waa nolol iyo geeri baa doontay anu alxamdulillah ilaahi waa badbaadiyay waana soo galay meeshan muqallasiinta wax soo dar hunguri bay raadinayaan 1200 ba qof walba laga qaadaya 1200 markii laga qaado waxa laga yaabaa in doontaas doon ama daloosho buufin bac baa lagu saaraya bacdaas waxa laga yaabaa in bac daloosho noqoto bacda waxa laga yaabaa bac matoorka wuxuu yahay inuu noqdo bacda waxa laga yaabaa yar inay tahay oo dadka ay qaadi weydo inta aan dad aan aasnay oo aan Liibiya ku aasay anu aan wax ka aasay xisaab ma lahan oo ka soo caariyay Liibiya
hadday noqoto Sarmaan hadday noqoto Masarata inta doon ka soo caarisay oo safiirku intuu noo yimid uu yiri kaalay Soomaali baa soo aaseena xisaab ma lahan markii la soo saarayo jawi lagu soo diri maayo waxa la leeyahay hay sariix hay casri arkab caawa baxaysan fileel baa baxaysan baa la leeyahay sidii bay ku soo korayaan doomihii badii oo kacsan oo saddex jawigu maraya waa la soo saaraya marka isa u soo galaan xeebta Liibiya ayagoo ka soo dhamaan bay doonta la gudoomaysaa gab ilaa waa buufinay badii guri amal bay kugu soo dumaysaa buufin amal saas isku gadinaysaa usagana lacag baa laga qaaday ninkan Soomaaliga miskiinka ah wuxuu isleeyahay lacagtaadii si ka dhiman doon baa koraysa naftiisa fiirimaayo laakiin wuxuu fiirinayaa lacagtii buu fiirinayaa sidii uu soo galayaa badii doontu way kacaysaa way isrogaysaa hal mar dadkii oo dhan huf waxa laga yaabaa hal qof inuu ka badbaado dadkaas caaway bixeen subaxdii waxa laga yaabaa meedkooda dadkii in laga soo aruuriyay xeebta Liibiyaanku dan iyo hela kama lahan safaaradda soo wacay waxay leeyihiin konton Soomaaliya meedkoodii baa meesha yaala war dadkan meesha ku dhiman haya ciyaar miya konton hal mar meedkooda la soo aasay aqal galma naxadin markaas Liibiya Soomaaliya joogto ooyeysa saas oo ay tahay laga niyadjay maayo waxa arkaysaa kuwa kale doon isku diyaarinaya bad isku diyaarinaya marka dawladda Liibiya ama dadka reer Liibiya arinta iyada miyaysan wax ka qaban dawladda Liibiya ayaga ba diraba dawladii nimankii askariga u sareeyay baa dadkan diraya oo dad bada soo gelinaya askariga u sareeyana xiraaya intuu caaw ku diro buu doonkaas oo daba diraya oo ku soo qabanaya oo jeel ku gurdaya Soomaaliya ku 1200 buu ka arursanaya hadana jeel uu ka soo saaraya doon buu hadana 1200 ka arursanaya sidii buu hadana ku soo waa baayac mushtar caadi ah ka socda Liibiya saas oo ay tahay dhibaatada inta badan jeelalka la galo Soomaalida ay ka qabsatay dhibaatada waxa ka mas'uul ah muqallasiinta Soomaalida oo jooga Liibiya kaasi waxa uu ahaa Cabshakuur Xasan Jaamac oo marti noogu ahaa xubinta lafagurka nolosha wuxuuna igu waramayay stuudiyaheena qalbiga itigsadee igu tarmay sidaadii haddii uu itaabto ku tallaalmay xidid daraa qalbiga itigsadee igu tarmay sidaadii noloshu waa tobaaniyo ayaamuhu tirsamaye tabashadu xalkeed leh xaybta kooran caashaqa iyo ayaamuhu tirsamaye tabashadu xalkeed leh xaybta kooran caashaqa inkastooda iska tuuriyo katir laabta leedahay inkastooda iska tuuriyo oy katir laabta leedahay watabi hadiyo jeer ufudnaha ku tiirsaday watabi hadiyo jeer ufudnaha ku tiirsaday inkastoo iska tuuriyo katir laabta leedahay inkastoo iska tuuriyo katir laabta leedahay watabi hadiyo jeer ufudnaha ku tiirsaday watabi hadiyo jeer wadnaha ku tiirsaday inkastood iska tuuriyo katir laabta leedahay waa tabi hadiyo jeer qof wadnaha ku tiirsaday
codka baxsan hobalka nimcaan hilaac ayaa maanta aanu ku soo gabagabaynaynaa idaacadeena waxaa si toos ah nagala socoteen idaacadda codka muhaajiriinta ee Malta ee Voice of Migrants Radio VOM waxaana idin soo gudbinayay ururka warbaahinta Afrikaanka Malta barnaamij soo saareen maanta waxa uu ahaa Xuseen Cabdullaahi Hanad waxaan idin la socodsiinayay anigoo ah Axmed Nuur Ibraahim Soomaali waxaana isku soo dabriday idaacadda Hibo Maxamed Yalaxow tan iyo kulankayaga dambe sidaa iyo nabadgelyo haddii aad ku taanto ku tiirsamay naftaadii xanuun kugu tuujiye kugu tolmay sidaydii haddii aad ku taanto tiirsamay naftaadii xanuun kugu tuujiye kugu tolmay sidaydii tuduc weeye caashaqu tirsiiniyo xidhiidhisane isagoon dhammaan tegin tiirka looma siibe tuduc weeye caashaqu tirsiiniyo xidhiidhisane isagoon dhammaan tegin tiirka looma siibe inkastooda iska tuuriyo ka tir laabta leedahay inkastooda iska tuuriyo ka tir laabta leedahay واتبي هذه وجه قف ودنها كتير صدي واتبي هذه وجه قف ودنها كتير صدي